aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Socoto daawadayaal ku soo dhawaada xubintii ganacsiga ee warka qodobkan ku bilaabayno xubinta ganacsiga warka maanta waxa kamid ah bangiga KCB Bank ayaa ku dhawaaqay inuu iibsan doono bangiga qaranka ee loo yaqaan National Bank of Kenya. Bangiga KCB ayaa laga wadaa in ay hesho dhamaanad saamiga bangiga qaranka ay leedahay bangiga qaranka ee Kenya kaas oo sii dheereeyay isku dhaafka iyo iibsashada qaybta bangiyada Kenya. KCB oo hadeyn bixiyaha ugu weyn suuqa Kenya ayaa shaaciyay maanta in heshiiska la dhameyn doono si ay u ansaxiyaan saamiyada saamileyda ee labada bangiyo iyo sidoo kale xeer ilaaliyaasha. Shaacinta waxay xaqiijinaysaa qiyaastii 2 sano ee KCB ay ka fikiraysay iibsashada bangiga National Bank iyadoo bangiga qaranku uu waayihii dambe soo wajahday caqabado dhaqaale. Ballanqaad uu qaranka u ballanqaaday bangiga in lagu taageeri doono lacag ballaaran ayaa dib dhac ku timaatay 2 sano. KCB iyo bangiga qaranka waxay ku qoran yihiin suuqa sarifka ee Nairobi iyadoo ganacsigooda hagiyeen subaxnimadii maanta si ay u ogolaadaan maalgashiyaasha inay la socdaan warka suuqa. Sidoo kale ganacsiga ayaa markii dambe dib loo furay. Maamulaha isgaarsiinta ee suuqa sarifka Nairobi ayaa ku wargeliyay dhammaan maalgashiyaasha saamileyda iyo dadweynaha guud ahaan in ay joojiyeen ganacsiga saamiyada ee KCB iyo bangiga qaranka iyadoo sugayaan shaacinta rasmiga ah ee ka soo bixi doonto bangiga qaranka ee National Bank. Faqradda ayaa sheegaysa in suuqa sarifka ay si ku meel gaar ah ku joojin karto ganacsiga mid ama dhowr suuq ka hor inta aan helin cadeymo shirkad ah oo ku saabsan warbixin ku saabsan shirkadda loo soo bandhigay dareenkeeda. Intaan waxaa dheer, joojinta waxaa la sameyn karaa marka ay jiraan dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo sicirka iibka ama qiimaha amniga. Haddii aan eegno qodobka labaad ee ganacsiga, shirkadda Amazon oo gabi ahaanba joojisay iibinta badeecadaha Shiinaha inay ku iibiso gudaha dalka Shiinaha. Shirkadda Amazon ayaa dib u guranaysa suuqii ugu weynaa adduunka ee iibka online-ka ah ay ku leh dalka Shiinaha. Waxay xiri doontaa suuqeeda Shiinaha ee ay ku iibin jirtay badeecadaha ay soo saarto Shiinaha bilaha soo socda, taasoo macnaheedu yahay macaamiisha Amazon ee dalka Shiinaha ku sugan ma awoodi doonaan inay alaabta Shiinaha ka iibsadaan ganacsatada Shiinaha. Amazon ma aysan sharaxin sababta ay uga baxday adeega suuqa, iyadoo sheegtay in kaliya ay diiradda saari doonto iibinta alaabta laga soo iibsado dalka kale oo la soo geliyo Shiinaha. Shirkadda ayaa sheegtay inay ku wargeliyeen iibsadayaasheeda inay sii wadi doonaan suuqa Amazon ka bilowga 18 bisha January. Shirkadda Amazon waxay soo gashay suuqa Shiinaha 15 sano ka hor markii ay heshay suuq iibka internetka, laakiin waxay ku dhibaatoonaysaa tartan adag. Cilmi baadhistu waxay soo jeedinaysaa in saamiga suuqa ee shirkadda Shiinaha ay ahayd mid yar marka loo barbardhigo kooxaha la tartamaya shirkadda Amazon. Sida laga soo xigtay shirkadda e-marketer, suuqa online-ka ee Shiinaha waa mid aad u weyn oo kor u qaadaya iibka faa'iidada qiyaastii $2 trilyan sanadkii. Suuqa Mareykanka ayaa u qalantaa in ka badan rubac ka mid ah tan Shiinaha. Sida ay muujinayso xogta shirkadda e-market, suuqa Shiinaha waxaa haysta shirkadda Alibaba, taasoo ka dhigan in ka badan kala bar saamiyada dhammaanteed iyo jadwalka maxalliga ee JD.com. warkii ganacsiga ee RTN waa naga inta markaana waxaan dib idin ku celinayaa Cabdirasaaq Socoto.